هاي بسم الله الرحمن الرحيم شامني سوا إذن ما علينا يا runtii maanta maalin muhiim u ah dalka ayay ahayd iyo dadkaba waxaana lagu balansanaa in madaxweynaha uu la hadlo golaha shacabka wuxuuna u jeediyay khudbad meelo badan taawanaysay isla markaana badankeeda ku saabsaneed xaaladda dalka uu marayo iyo doorashada dalka iyo marxaladaha waxa weeyaan ay soo mareen waxyaabo badan ayuu madaxweynaha ifiyay madaxweynaha waa uu garnaqsaday runtii caqabadaha meesha ay ka jiraan waxa weey waa uu sheegay wuxuu ka hadlay marxaladaha ay doorashada soo mareen iyo tanaasulaadka waxa weey uu sameeyay isagoo waxa weey wili ugu baaqay in uu macnaha fursad siin doono bal cidii wax ka gasha inta diidan waxa ay saxiixeen cidii wax ka gasha inuu ugu baaqay inay wax ka qabtaan ay isla markaana waxa weeyaan galaan laakiin waxyaabaha la yaab kale waxa weeyaan dad waxa weeyaan xildhibaano matala golihii shacabkii matala kana tirsan golihii shacabka oo aad u moodo mararka qaarkiisa inay shisheeyaha afhayeen u yihiin ka gubanayaan marka la soo hadal qaado war shisheeye ma rabno oo annaga aan heshiino oo shisheeyuusan soo dhex fadhiisanin waxaad la socotaan khudbadaha qaarkooda ay madaxweyne goboleedyada qaarkooda ay qabteen inay mar kastaba ku adkaysanayeen in ay muxuu ahaa nimanka shisheeyaha qayb ka noqdaan shirka oo saxiix ay ku yeeshaan waxyaabaha la diidan yahay waxa waaye dalkan marjicu leeyahay marjiciisana waa baarlamaanka marjiciisa ma ahan xalana iyo shisheeye ma marka waxay ahayd horta inay waxa waaye mid ay gartaan cid ay mas'uulka u yihiin inay Soomaali tahay cidda go'aanka gaaraysan ay Soomaali tahay dawladana ay tahay dawladii Soomaaliyeed iyagana ay yihiin dad Soomaaliyeed iyo mas'uuliin Soomaaliyeed inay yihiin inay fahmaan waa arkaysay markii aad muxuu ahaa uu madaxweynaha sheegay inay shisheeye faraha kula jiraan firimbe iyo buuqay waxa weeyaan la soo bixin taas oo runtii ayaan daraa u muuqanaysa inay afayana yihiin oo shisheeyaha ay u yihiin waxaan aaminsanahay Soomaalida xukunka iyo hab maamulka iyo dawladnimada iyo qaabka loo socodsiinayo loo maamulayo waxyaabo la isku khilaafi karo waa wax caadi ah oo normal ah oo ay ku dhisan tahay nolosha siyaasadeed ee dal kastaba ay leedahay gaar ahaan marka laga hadlayo xaaladda doorasho marka laga hadlayo laakiin waa ayaan daro in afayeen loo noqdo shisheeye ama shisheeye kalkaal waxa waaye ay u muuqdaan marka shacabka Soomaaliyeed hool adag ayaa sugayso doorasho qof oo cad ayaa laga yimid doorasho 301 qof ayaa laga yimid doorashadii 101 intaba waxa waaye waxa ayaga soo qorteen ay yihiin ilaa iminkana waxa waaye diidan yihiin marka waxa kale oo waxa weeyaan la cadeeyo mudan baarlamaankan dalkan wuxuu leeyahay shuruuc uu leeyahay shuruucdaasi ayaana soconaysa hadal siyaasadeed waxa waaye kama shaqeeyo baarlamaanka wuxuu ansixiyay in baarlamaankan iyo dhammaan hay'adaha dawladda uu ku jiro madaxweynaha iyo xukuumadaba ay sii jirayaan inta ay imaanayaan hay'adihii bedeli lahaa baarlamaanka ansixiyay wixii siyaasadda hadda meelaha laga sheegay fadhi ku diraan u aragnaa bas oo waxa muhiim ah noogma fadhiyo laakiin mar kastaba waxa waaye sharcigaas ayaa shaqeynaya isagaasaana lagu soconaya waxa la yiraahdo 8 Febraayo iyo 9 Febraayo iyo wax la yiraahdo waxba kama jiraan sharciga shaqeynaya sharcigaasaana loo hoggaansamaya cid kastana way ku qasban tahay sharcigaas waxa waaye inay qaadato shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan shisheeyaha ku jira waa naqaana gabigeenaba waxa waaye dhagaha maliin oo ma moogni waxay ka shaqeynayaan laakiin waxa weeyaan maalin ayay waxa weey arki doonaa laakiin waxaan aaminsanahay dalkan inuusan mugdi galaynin dalkan inuusan dib u laabanaynin dadkan inuu hor u soconayo marka ay xaaladda sida u cakiran tahay waxa weey xaqiiqda waxay tahay in ilayskii waxa waaye loo baxayo oo fooshi muxuu ahaa farxadii ka horeysay foosha inay waana loo baxaya insha Allah taala waxa aan ku wada qanacsannahay ayaana soo baxayo baarlamaankana kaalintiisa iyo doorkiisa ayuu qaadan doonaa doorka baarlamaanka waa marjaca ugu sareeyo oo meeshii loo laaban lahaa waxaana go'aan laga qaadan doonaa muxuu ahaa qaraaraadka masiiriga baarlamaanka ayaana waajibaadkiisa gudanayo cidda baarlamaanka ay kamid tahay aan aaminsanayn iyaga waxa weeyaan u taala baarlamaanka fiir mar waxay ku leeyihiin baarlamaanka xilka waa dhamaaday haddana mishaarkii way qaadanayaan waxay ku leeyihiin baarlamaanka xilkiisa waa dhamaaday way soo xaadirayaan waxay ku leeyihiin baarlamaanka waa dhamaaday waxay ku leeyihiin xildhibaananahay bal adoon meel isugu geey
الله soo hanuuniyo kii hanuunsan waayna sharciga waxa weeyaan insha Allah ta'ala qaban doona shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantiin shukran iyo asxaabtooda abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama account-kiisa Daarasalaam Bank haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga payc